cabdinuurow haddii aan Soomaaliland nahay ama aanu go'aanka iyaga go'nu qaadano aanu u leenahay haddana anigu oday Soomaaliyeed baan hayo wanaaga iyo walaalahayga koonfureed baanu la jecelahay marka konton sano ka hor khaladkii la galay maanta in Soomaali lagu maamulo oo wali lagu wax loogu qaybiyo waa ceeb weeyaan waxa raalli ahaw qadiyadii Soomaaliland waxaad ka dhigtay marka wax qaybsi uu inay ku tageen maya sug waa soo socdaa waxa weeyaan waxa meesha yaala waxa weey horta waxa weeyaan midnimada anigu raggii Afrika inay midowdo oo la leeyahay waxa weeyaan midnimo cadaalad ku dhisan shakhsiyan anigu ma diidani laakiin masiirka shacabigayga iyo dadkaygu qaato waan ku khasbanay inaan qaato 18 gobol markuu ku kordhiyay goboladii dhisna in reer leeyahay ku kordhiyay ilaa hadda in Soomaali la yaado 18 Maxamed Siyaad Barre reernimada ku qaybiyo wax loogu qayb cadaalad darrada ka mid tahay waxyaalaha wax ku dawoobay way meelaha wax ka xun wax ka mid ah hadda madashan la sheegay reer ay ku dhisan tahay waa niman sheef caaqil la anoo ixtiraamaya waxaad ka soo qaadaa shirkii horeeyay Kismaayo 7 shakhsi baa madasha la yiri Somaliland baa lagu soo qoray meesha wax loogu qaybiyay Somaliland ma joogto xataa maxamed Umar Carte oo la yiri madashu goob jooge ka yahay kuma jirin 7 shakhsi waxa weeyaan majority-na waxa weeyaan hiraad iyo majeerteen waxay ahaayeen 7 afarta maamul goboleed metelaya iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul baarlamaanka ayay ahaayeen marka waxay muuqanaysaa majority inay ahaayeen sidaan sheegay ka dhawaatay hiraad iyo majeerteen inay ahaayeen iyagu haddana aqalkii saraanu qaybinayna ummad baan wax u qaybinayna international community dhageysato marka waxa weeyaan maanta in la yiraahdo meel aan wadada aan wakiil balahayn ummadii kale aan wakiil lahayn inay hiraad iyo majeerteen inta yiraahdaan madal baanu nahay oo baarlamaankii la jiiro oo shuruucdii dalka la jiiro boqor Cusmaan raalli ahaw waxaad moodaa inaan hayn ism ku jawaabo oo sidaadoo kale qabaa'ilkii iyo sida wax lagu qaybiyay iyo 4.5 iyo qolo walba intay ka heshay iyo qolo walba intay salugsan tahay iyo laakiin waxaan hayaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Maxamuud Faarax oo ku magac dheer Indhabuur xildhibaan bal waad maqlaysay doodu sida ilaa ay u socoto iyo hadallada boqor Cusmaan boqor Cusmaan hadduu yiri hiraab iyo majeerteen baa waxa weeye wax qaybsaday isaguba dad buu dulmiyay oo waxa weeye 12 xubnood ee waqooyi la siiyay dhulbaante iyo kuma leh isaga hadalka qaawiye dhulbaante iyo warsangeli waxa kuma leh oo la taagan yahay oo ay la musanaabayaan oo migeer walba la taagan yihiin yaa reer waqooyi ma isaaqba reer waqooyi bal weydii cid reer waqooyiga ama Somaliland magaca Somaliland ma isaaqba ma dir waqooyi bal isaga horta hal la weydiiyo mid labaad ina Umar Carte marka uu leeyahay waxa weeye la siin maayo leeyahay madashiina uu fadhiyo bal waxa uu ku fadhiyo hal la weydiiyo ma isaaqnima mise reer waqooyi inuu reer waqooyi wax u qaybiyo ayuu xaq u leeyahay labadaas su'aalood baan anigu bal boqorka waxa weeye aan weydiinaya boqor waad maqlaysaa xildhibaanka ka garbax horta waxa weeyaan markaynu sidaa ka hadalno anigu horta marka horeba qaybta tan qaybna kama nihin Somaliland haddaanu nahay waxaan ka soo galiyay horta madasha ama raalli ka hada ma ka raalli ahaan inuu idinka igu soo marti qaaday marka saa laga hadlayo 4.5 baa wax lagu qabsaday waxaan kale Somaliland iyo Puntland iyo waxa kan Soomaaliya oo aanu ka tagnay dawladda oo maanta 5 meelood loo jajabiyay aan jirin inaan wax ku darsanana diyaar uma nihin dulmigan carruurtayda ka galay mid labaad inaan ka galay ma doonino mid waxa weeye khilaaf anaga noo yaala Somaliland waxa weeyaan waxa iyaga wixii naga khaldan waxaan leeyahay waqooyi Somaliland markaanu leenahay dulmi gaar ah oo siyaasadeed baa laga galay laba ra'iisul wasaaraha soo maray midna wuxuu ahaa Maxamed Ibrahim Cigaal midna wuxuu ahaa Ali Khaliif Gareyd labadaba koonfur baa lagu inqilaabay waxa dhacaysa marka anagu waxa weeyaan waxba kama qabno marka anagu Somaliland inaanu wax qaybsano diyaar baanu nahay wixii aanu walaalaha iyaga kaga khaldanahay anagu Somaliland xaydaanka Somaliland markay nala soo galaan waan qirayaa inaanu saamiye aan lahayn anagu haysano oo bilaakiin diyaar waxaan u nahay inaanu siino maanta waxaanu diyaar u nahay inay madaxweynaha qabsadaan Ali Khaliif baa noogu adago maanta inuu dalka xukumo oo uu qabtaan oo